وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا دا معلمك وحناهاي وهديك دوسيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan soo gudbin doonaa cashirkeeni labaad baynu soo gudbin doonaa seen xiisadii hore waxaynu isku soo aragnay cashirkii ka horreeyay. haddaba intaanan cashirkeenan cusub aanan bilaabin waxaan in yar isku xidhi doonaa cashirkeena maanta iyo cashirkii hore aynu shalay soo qaadanay. haddaba cashirkeenu shalay soo qaadanay wuxuu ahaa tiiradii xariiqda ayuu ahaa. tiiradii xariiqdu waxaynu soo sheegnay tiirada xariiqda waxaa loo qaataa xarafka m waxaana lagu heliyey waa y2 minus y1 divided by x2 minus x1. haddaba maanta cashirkeena cusub waa isla tiiradii xariiqda ee waxa weeyaan waa sida tiirada xariiqda looga soo saaro isleegta. tiiradii xariiqda ayaa laga soo saarayaa isleegta laga soo saarayaa. waxaynu hore u soo baranay in isleegta toosan loo qoro y equals mx plus c. waxaynu hore u soo baranay in isleegta toosan loo qoro y equals mx plus c. haddii aad buugaagta qaarkood ku aragtaan sidaasina hala yaabina y-daydu waxay leegtahay mx plus b. waayo halkani waa doorsoome kan kalena waxa weeyaan waa doorsoome. markaa doorsooma haddaan c ka dhigo iyo haddaan b ka dhigo waa isku mid. waayahay marka hore markaa mteenna oo ah horgalaha eges mteennan oo ah horgalaha eges waa tiirada xariiqda. isleegteennan aynu haysanee toosanee ah y-daydu waxay leegtahay mx plus c. egesta tirada ee mta ka horeysa waxay u taagan tahay tiiradii xariiqda. halka c oo ku calaamadsan halkaa c-na ay tahay tikraarka isleegta. haddaba ereyga maanta inagu cusub waxa weeyaan waa waxa la yidhaahda tikraar baa maanta inagu cusub. tikraarku arday waxa weeyaan waa barta uu garaafku ka jaro dhidibka y. waa barta uu garaafku ka jarayo dhidibka y. hore waxaynu u soo baranay laba dhidib baynu u soo baranay. dhidib waxaa la odhan jiray labada dhidibbaynu hore u soo baranay. kaa wuxuu ahaa waa dhidibka eges kana waxa weeyaan kaasi waa dhidibka y kana waxa weeyaan waa dhidibka eges. chapterka waxaynu ku bilownay dhidibada kaartis baynu ku bilownay. markaa kaasi waxa weeyaan dhidibka eges kana waa dhidibka eges. haddaba tikraarku waxa weeyaan garaafku barta uu ka jari doono dhidibkayga y meeshii uu ka jarayo weeyaan. barta uu ka jaraya ayaa la odhanayaa tikraarkaygu halkaasi buu noqonayaa. haddaba waxaynu u gudageli doonaa tusaalooyinka ayaynu u gudageli doonaa ama tusaalooyinka ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa. waxaa lagu yidhi xisaabi tiirada iyo tikraarka isleegtan. xisaabi tiirada iyo tikraarka isleegtan baa lagu yidhi xisaabi. waayo marka koowaad waxaan odhanayaa isleegtayda waxaan haystaa y-daydu waxay leegtahay waa 5x plus 3. waxaan ku miisaamayaa isleegtii xariiqda toosan baan ku miisaamayaa ee ahayd y-daydu waxay leegtahay waa mx plus c. taasi baan ku miisaamayaa. labadaydii qodob tirada egesta ka horeysa waa tiiradii xariiqda. tirada kelideed meesha taalaana waxa weeyaan waa tikraarkii. waxaan odhanayaa intaasi y-daydu waxay leegtahay waa mx plus c. waa mx plus c. tirada egesta ka horeysa waa tiiradii xariiqda. tirada kelideed meesha taalaana waa tikraarkii. markaa waxaan odhanayaa intaas waxay leegtahay mta iyo ah tiiradii xariiqdu waa tirada egesta ka horeysa oo waa 5. tiiradii xariiqdu waxay leegtahay 5. waayo tikraarkuna wuxuu noqonayaa waa tirada kelideed meesha taala oo waxa weeyaan waa tiri. waxaan ku miisaamayaa un isleegtana haysto y-daydu waxay leegeed mx plus c. tirada egesta ka horeysa waa tiiradii xariiqda. tirada kelideed meesha sii taalaana waxa weeyaan waa tikraarkii weeyaan waa tikraarkii.
tusaalahayga labaad waxaan odhanayaa waydayda waxaan u miisaamayaa waa mx balaasi tirada egasta ka horeysa waxa weeyaan waa tiradii xariiqda iminka egastaydan ma arkayo wax tiro oo ka horeysa tira meel taala tirada u qarsoonayd baad xisaabinaysaayo waxa weeyaan waa hal doorsoomaha egas ayaa u taagan wan buu u taagan yahay doorsoomaha egas muxuu u taagan yahay wan buu u taagan yahay markaa waxaan odhanayaa tiradaydu waxay leegtahay waa wan tikraarkuna waa amba tikraarkuna waxa weeyaan waa -5 halkan balaastiri buu hayo waa balaastiri kanina waa minus oo minuskiisa waan muujinayaayo waa -5 way tusaalahayga saddexaad isaga laftigiisana kiibaa la weydiiyey laakiin tusaalahani wuxuu kaga duwan yahay tiradii egasta ka horeysa waxa weeyaan waa jajab tiradii halkay sii taalaana waxa weeyaan waa jajab markaa tiradaadu jajabna way noqon kartaa tiro caadiyana way noqon kartaa waxaad u miisaantaa waydaydu waxay leegtahay waa mx balaasi tirada egasta ka horeysa waa tiradii xariiqda halkay sii taalaana waa tikraarkii markaa waxaan odhanayaa mtaydu waxay leegtahay waa 3/2 tikraarkuna wuxuu noqonayaa waa tiradan ka dambayso waa -4/7 waayahay kan markaan taaganahay tusaalahani dhammaantood wuu ka wada duwan yahay ardaye ma haysano waydaydu waxay leegtahay intaas siday leegtahay marka hore waan soo fududaynayaa waydayda ayaan ka dhigayaa subject or formula ayaan ka dhigayaa markaan waydayda markaan la soo baxo kadib ayaan ku miisaamayaa isleegtii xariiqda toosan aan ku miisaamayaa marka hore intan maan soo fududaynayaa dee aljabradii baynu soo marnay markaynu soo marnay waxaynu wareejin jirnay doorsoomaha lanaga doonaya maahae tirada ayaynu wareejin jirnay oo metaloo kale haddii lagu siiyo 2x + 3 = 6 haddii lagu siiyo tallaabada koowaad aad qaadi jirtay waxaad wareejin jirtay tiradaasi baa meesha ka saari jirtay calaamadan uu wato calaamada ku obasidka aad siin jirtay oo waxaynu odhan jirnay 2x waxay leegtahay waa 6 kani balaas u wataa markuu wareego wuxuu qaadanayaa minus buu qaadanayaa 2x waxay leegtahay 3 bay leegtahay marka hore waan fududaynayaa markaan fudaydiyo kadib ayaan soo saarayaa tiradii iyo tikraarkii labadaba waayo waxaan odhanayaa 2x intani waxay leegtahay waa 2x plus y equal 10 2x kan baan wareejinayaayo waydaydu waxay leegtahay waa 10 kani markuu soo wareega balaaska u qarsoon wuxuu qaadanayaa waa -2x halkan markaan taaganahay waan fudeydiyey oo waxaan ka dhigay waydaydu waxay u qoran tahay waa mx balaasi haddaba arday maanta 10kani waa bardiisiida ayuu taagan yahay tikraarkaygii ama tiradaydu wuxuu noqonayaa tirada egasta ka horeysa egastaydana waxa ka horeeya -2 inaad tiraahdi tiradaydan hore waa tiradii xariiqda ardayay waa qalad weeyaan waayo waxaan odhanayaa tiradaydu waxay leegtahay amba mtaydu waxay leegtahay taasi ma soo wareejinayaayo waa -2 tikraarka markaan ka hadlayo tikraarkaygiina tikraarkuna wuxuu noqonayaa waa tirada keligeed meesha taala oo markaasi waxa weeyaan waa 10 hadday noocan oo kale u qoran tahay horta marka hore soo fududee markaad soo fudaydisid kadib baad ayaad xalinaysaa waayo tusaalahayna ugu dambeeyaan qaybteena ugu dambaysa ardayda waxaynu ku eegi doonaa halkaa hore waxaynu kaga soo hadalnay tiradii iyo tikraarkii baynu kaga soo hadalnay haddaba maanta iyada oo lagu siiyey waxa lagu yidhi raadi tikraarka isleegta marka baraha lagu siiyey baraha layna siiyey waa labadan barood waxaa kaloo laynoo raaciyey
tiiradii xariiqdo xarafka in loo soo qaatayna waa layna siiyey labadoodiba waa layna siiyey hore waxaynu u soo barnay laba barood oo meel yaalo waxaan u qaadanayaa waa x iyo y tiradayda hore waxaan u qaadanayaa inay tahay x tiradayda dambana waxaan u qaadanayaa inay tahay y ha isweydaarin ardayow haddaad tiraahdo tan y baan u qaadanayaa tanna x baan u qaadanayaa jawaabtaadu waxay noqonaysaa qalad bay noqonaysaa waayo garaaf marka la sawirayo waxayna xukumi jiray qiimaha x-ta ayayna xukumi jiray waayo waxaan oranayaa haddaba marka koowaad kan siin baan qoranayaa maxaa layga doonayaa tiradaydi waan haystaa x1 iyo waan haystaa waayo siin waxaad tidhaahdaa tiradaadii oo intiyo waan haysataayo waxa weeyaan waa 2 x1 waan haystaayo waa 4 y-na waan haystaa amba y1 waxaan haystaa waa 6 therefore halkaasi markaan taaganahay waxaa layga doonayaa tikraarkii baa layga doonayaa isleegka toosan waydaydu waxay leekay waa mx plus c haddaba ardayow markaad halkaasi taagan tahay mid kasta waxaad ku bedelanaysaa qiimihiisii baad ku bedelanaysaa markaan leeyahay qiimihiisii baad ku bedelanaysaa waxa weeyaan meel kastay way taalo waxaad ku bedelataa qiimihiisii meel kasta yan taalo waxaad ku bedelataa qiimihiisii meel kasta yagas taalana waxaad ku bedelataa qiimihiisii markaasi baynu helaynaa tikraarkii aynu helaynaa oo tikraarku ahaa barta uu garaafku ka goynayo dhidibka y uu ahaa amba xarafka c uu ahaa sidaa sidaa laynaga doonayaay waayo waydayda waxaan haystaa 6 baan haystaa halkaas waxay leedahay waa 6 mtayda waxa lay siiyey 2 baa lay siiyey x-taydina waxa lay siiyey 4 baa lay siiyey intaa balaasi aniga c baa layga doonayaa markaasi kan qiimihiisii baan ku bedeshay kana qiimihiisii intaa ma taabanaya labadan baan horta soo fududaynayaa halkaasi waa 6 waxay leedahay 2 4 ku dhufo waa 8 balaasi halkan waxaynu hore u soo marnay waxaa isku dhinac la mariyaa amba isku dhinac la mariyaa waa kuwa la yidhaahdo like termiska ayaa dhinac la mariyaa amba doorsoomayaasha dhinac la isku mariyaa tirooyinkana dhinac la isku mariyaa maanta waxaan haystaa 2 tiro ayaan haystaa dhinacan baan isku soo wada marinayaa oo waxaan odhanayaa waa 6 kani balaasu wataa markuu soo wareego wuxuu qaadanayaa waa -8 intaasi waxay leedahay c labadayda calaamaduhu waa negative waa balaas iyo negative waan soo kala goynayaa markaan kala gooyana calaamada ii soo hadha waxa xukum calaamada halkaa iga soo bixi doonto waxa xukumaya tiradayda weyn calaamadeeda labadayda tiro kala goo waxa ka soo hadhaya waa 2 calaamada uu qaadanayo waxa go'aaminaya tiradayda weyn calaamadeeduna waa minus halkaasi waa -2 ayay leedahay c-duna xagga Soomaaliya waxaa tidhaahdaa therefore c-daydu waxay leedahay -2 bay leedahay c-daydu waxay leedahay -2 amba tikraarkayga ayaa leeg -2 waayo tusaalahayga kale igu sii xigaa mtaydii waxa weeyaan amba tiradaydii waa jajab weeyaan mtaydii waa jajab marka hore waxaan odhanayaa siin baan odhanayaa maxaa lay siiyey mtaydii waan haystaayo waa 2 divided by 3 x-taydina waan haystaayo waa 1 y-daydina waan haystaayo waa 4 halkaan markaan taaganahay y-daydu waxay leedahay waa mx plus c meel kasta y taalo waxaad ku bedeshaa qiimihiisii meel kasta m taalana waxaad ku bedelataa qiimihiisii meel kasta yaga taalana qiimihiigii ku bedelo y-dayda waxaan haystaa 4 baan haystaa mtayda waxaa lay siiyey waa 2 divided by 3 x-taydana waxaa lay siiyey waa 1 plus c-dani waxa weeyaan waa tikraarkii oo waa tiradii layga doonayay weeyaan c-dani waa tikraarkii halkaan markaan taaganahay 2 baan ku dhufanayaa 1kan waa 4 laba hal ku dhufo waa 2 labana waxaan u qaybinayaa 3 plus c
haddaba halkaan markaan taaganahay wixii tirooyin ayaan isku dhinac soo marinayaa wixii doorsoomana isku dhinac marinayaa laakiin doorsoomaan haystaa waa hal tiro oo keliya taan haystaa c keliya taan haystaa kanun baan soo wareejinayaa iyo halkaasi waa 4 plus 4 tahay wuxuu qaadanayaa 2 divided by 3 minus intaasina waxay leegtahay waa c haddaba ardayow halkaasi markaa taagan tahay waxa inoo soo baxay waxa weeyaan waa jajaba inoo soo baxay ardayow waxa dib ugu noqonaysaa amba ay maskaxdaada dib u xasuusinaysaa wixii la oran jiray jajabyada ayaa dib u xasuusanaysaa tira meel taala waxaynu soo sheegnay waxa uu qarsoon 4 baa u qarsoonaa 4ta u qarsoonaa waxa weeyaan waa calaamad balaasa hooseeya hala iyo jibaar hala ayaa u qarsoonaa tirada intaasi baa u qarsoonay haddaba maanta waxaan muujinayaa amba aan muujinayaa waa hooseeyihii halka ahaa aan ku yara xasuusiya ardayowe hoos jajabiska marka laga shaqaynayo amba jajabka marka laga shaqaynayo tallaabada koowaad ee la qaadi jiray waxay ahayd waxa la eegi jiray hooseeyaashooda ayaa la eegi jiray hooseeyaashoodu haddii ay isku mid yihiin mid baa laga soo qaadan jiray haddii ay hooseeyaashoodu kala duwan yihiinna waxa la raadin jiray waxa la yidhaahdo dhufsanayaraha ay wadaagaan ayaa la raadin jiray ardayo haddaba maanta labadaydan tiro hooseeyaashoodu ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin haddii ay kala duwan yihiin waxaan raadinayaa waxa la yidhaahdo dhufsanayaraha ay wadaagaan haddaba labada tiro aan dhufsaneerooga raadinayaa waa kuwe waa 1 iyo 3 dhufsanayaraha waxaa loo raadin jiray waa dhufsane yaraha ay wadaagaan labadayda tiro waa 1 iyo 3 arday waxaan idin xasuusinayaa tirooyinka loo qaybin jiray waxay ahaayeen waxa loo qaybin jiray 2 baa loo qaybin jiray haddii tirada wax 2 qaybsama la waayo waa la iskaga tegi jiray tirada kale ee la tegi jiray waxay ahayd 3 haddii tirada la waayo wax 3 u qaybsama waa la iskaga tegi jiray tiradeeda kalena waxay ahayd 5 bay ahayd 7 bay ahayd sidaasi baan u sii soconayaa maanta wax 2 u qaybsama kuma jiro ee waxaan oranayaa halkan 3 u qaybi 3 hal u qaybi waxa weeyaan waa hal 3na 3 u qaybi waxa weeyaan waa hal marka tirada baa la isku soo dhufan jiray tira kale oo lagu dhuftaa ma taalo ee waxaan oranayaa intaas waxay leegtahay waa 3 labadani dhufsaneeraha ay wadaagaan waxa weeyaan waa 3 dhufsaneerahoogi baa soo helayo ah 3 markaa waxaan oranayaa dhufsaneerahoogu maadaamuu noqday 3 waxaan oranayaa tirada markaan hal ku dhuftay siisa 3 waa 3 na 4 ku dhufo waa 12 minus tirada markaan 3 ku dhuftay siisa 3 tirada markaan 3 ku dhuftay siisa 3 waa hal 2 ku dhufo waxa weeyaan waa 2 intaas waxay leegtahay siday leegtahay halkaan markaa taagan tahay marka hore kuwa sare ayaa soo kala goynaysaa kadibna tiribaad u qaybinaysaa 12 waxaad ka goysaa 2 oo waa 10 divided by 3 ayay leegtahay c labadaydan tiro wixii siro oo ka dhexeeya ma jiro therefore waxaan oranayaa c-deydu waxay leegtahay waa 10 divided by 3 c-deydu waxay leegtahay 10 divided by 3 istabiska ayuunbaa yara dheeraaday ee sidii tusaalaha horaa ood uga shaqaysay ayuunbaad uga shaqaynaysaa waxa dheereeyey wax kala maahe waxa weeyaan dee meeshii jajabaa soo galay jajab hadduu soo galay hooseeyaashooda ayaa la raadiyey dhufsaneeraha ay wadaagaan kadib markaan ka soo shaqeeyo waxa ii soo baxay waa 10 divided by 3 last one tusaalahayga ugu dambeeya waxa weeyaan m-taydi waan haystaa waa -3 egastaydi waan haystaa y-daydina waan haystaa kani waa m-taydi kani waxa weeyaan waa egas kana waxa weeyaan waa y-daydu waxay leegtuun baan oranayaa waa n-egas + c meel kasta way taalo waxaan ku bedelanayaa qiimaheygii
meel kasta intaalana waxaan ku bedelanayaa qiimaheegii meel kasta istaalana waxaan ku bedelanayaa qiimaheegii waydayda waxaa la siiyaa waa -7 equal kana waxaa la siiyaa waa -3 egastayda waxaa la siiyay waa 3 waxaa laga doonayaana waa tikraarkii waxaan soo fududeynaya intan baan soo fududeynaya halkani waa -7 minus iyo plus hadaad isku dhufatid waa -9 plus c beetiradan baan soo wareejinaya kan markaa soo wareejiye wuxuu watay plus ku watay markuu soo wareegay wuxuu qaatay minus tusaalahaygani 9kaygani wuxuu wataa minus buu wataa markuu soo wareego muxuu qaadanayaa plus buu qaadanayaa halkaasi waa -7 kan markaan kan baan soo wareejinayaa wuxuu qaadanayaa waa +9 equal c labadaydan tiro waxaan odhanayaa waan kala goynayaa 9 baan odhanayaa 7 ka gooyo waa 2 calaamada ay qaadanaysa waxa go'aaminayaa tiradeyda weyn calaamadeeduna waa plus intaasna waxay leegtahay c therefore waxaan odhanayaa c-deydu waxay leegtahay 2 bay leegtahay intaasina waxa weeyaan waa marka tikraarka lagu siiyo amba tikraarka lagaa doonaya aad haysatid laba barood egas iyo y iyo tiradaadii aad haysatid sidii aad ula soo bixi lahayd weeyaan haddaba ardayow maanta waxaynu xiisadeennan aynu ku soo qaadanay 3 qodob aynu ku soo qaadanay 3 qodob aynu ku soo qaadanay waxa weeyaan horta inaynu barano sida tirada xariiqda looga soo saaro isleegta tirada xariiqda markaad ka soo saaraysid isleegta waa inaad maskaxda ku haysaa isleegta xariiqda toosan waa inaad maskaxda ku haysaa ee ah y2 ee ah y-daydu waxay leegtahay mx plus c laba qodob baan ku xasuusinayaa tirada egasta ka horeysa waxa weeyaan waa tiradii xariiqda tirada kelideed meesha taalaana waxa weeyaan waa tikraarkii weeyaan tikraarku arday waxa weeyaan waa barta uu garaafku ka gooyo dhidibka y waa barta uu garaafku ka gooyo qodobka ugu dambeeyaynu soo baranay waxa weeyaan tikraarka haddii lagu yiraahdo ka soo saar isleegta ka soo saar waxaad soo qaadanaysaa isleegtii xariiqda toosan ee ahayd y-mx plus c ku ahayd ayaad ka soo saaranaysaa meel kastoo imtaala qiimihiigii baad ku bedelanaysaa meel kastoo egastaalana qiimihiigii baad ku bedelanaysaa meel kastoo way taalana waxaad ku bedelanaysaa qiimihiisii markaa waxaa kuu soo baxayaa waa tikraarkaagii baa kuu soo baxayaa waxaad iska ilaalinaysaa calaamadaha ayaad iska ilaalinaysaa waa xasaasi intaasi baan kusoo koobayaa cashirkeeni labaad ee tirada xariiqda ka warramayna halkaasi baan kusoo gabagabay